shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku meel mariyeen hinda sharciyeedka difaaca qaranka Soomaaliyeed oo ay golaha u soo gudbisay wasaaradda difaaca. shirka golaha ayaa sidoo kale lagu meel mariyay xeerka cafiska dadka isku soo dhiiba iyo xeerka hay'adaha aan dawliga ahayn oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta iyo siyaasadda shaqo abuurka qaranka oo ay golaha u soo gudbisay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. golaha wasiirada ayaa soo dhaweeyay heshiiskii Sunna wal Jamaaca iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka gaareen dhismaha dawlad goboleedka Galmudug loo dhan yahay. waxaana ra'iisul wasaare Khayro oo gudoomiye shirka golaha bogaadiyay tanaasulka ay sameeyeen dhinacyada Galmudug. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa amray guddiga gurmadka fatahaadaha inay wax ka qabtaan xaaladaha ka jira Afgooye iyo Gardafuul oo ay daadadku saameeyeen. shirka golaha ayaa intii uu socday waxaa taliyaha booliiska Soomaaliyeed golaha u soo gudbiyay warbixin ku aadan weerarkii hotel SWL waxayna golaha wasiiradu dhinacooda bogaadiyeen dadaalada laamaha ammaanka iyo tallaabooyinka geesinimada leh ee ciidamada qaranku ay ku badbaadiyeen dadka shacabka ah. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xildhibaan Aadan Isaaq Cali ayaa shirka golaha wasiirada warbixin ka siiyay. ajandayaasha shirka ugu waaweyn waxa kamid ah warbixinta amniga oo laga dhageystay wasaaradda amniga halkaas ay ku soo bandhigtay weerarkii ugu dambeeyay ee argagixisada ay ku qaadeen SWL oo soo bandhigay taliyaha booliska. golaha wasiiradu wuxuu si aad u bogaadiyay laamaha ammaanka sida ay uga falceliyeen ama ay ula falgaleen weerarkii argagixisada ahaa halkaas isku dayga ay rabeen in dadkaas shacabka meesha ay ku waxyeeleeyaan. golaha wasiiradu wuxuu aad u bogaadiyay sida shacabka Soomaaliyeed ay ugu soo badbaadiyeen ciidamada booliska iyo dhammaan laamaha amniga qaybihiisa kala duwan. sidoo kale ajandihii ugu weynaa waxa kamid ah golaha wasiirada wuxuu aad u bogaadiyay geedi socodka dib u yagleelida ama dib u dhiska maamulka Galmudug. golaha wasiirada waxa ay bogaadiyeen dadaalkii iyo heshiiskii lala gaaray ahlu sunna wal jamaaca ay soo afmeereysay caqabadii hortaagnaa maamulkaasi dib u dhiskiisa. sidoo kale golaha wasiirada wuxuu maanta ansixiyay hindisa sharciyeedka difaaca qaranka Soomaaliyeed. sidoo kale wuxuu ansixiyay siyaasadda shaqo abuurka qaranka. sidoo kale golaha wasiiradu waxay ansixiyeen xeerka hay'adaha aan dawliga ahayn. sidoo kale waxa la ansixiyay xeerka cafiska dadka isku soo dhiiba dawladda. waxyaabaha kala dheeriga ah ee meesha shirka golaha wasiirada looga hadlo waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre waxa uu faray guddiga fatahaadaha iyo maareynta masiibooyinka in si degdeg ah ay ugu gurmadaan fatahaadihii ka dhacay degmada Afgooye iyo sidoo kale degmada Caluula si dhaqsi ah loo gaaro shacabka Soomaaliyeed ee halkaas ay dhibaatada ku haysato. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.